kumilanka al-shabaab ay ku dhex milmeen ciidamada dawladda ayaa xilligan maraysa heerkii ugu sarreeyay waxaana xubnaha al-shabaab ee ku jira ciidamada dawladda ay noqdeen kuwo waqtigan majaxaabinaya dadaalada gulufka ka dhanka ah kooxdaasi iyagoo beegsanaya saraakiisha lafdhabarta u ah halganka xilli aanay ku baraarugsanayn dawladda iyo saraakiisha ugu sarreysa ee dalka 2 cisho ka hor waxaa Shabeellaha Hoose lagu dilay gaashaanle sare Nuur Maxamed Gaabow Nuur Farey oo ahaa taliyihii guutada 14 Oktoobar waxaana dilkiisa oo ahaa mid qorsheysan geystay nin ka mid ahaa ciidamadiisa oo hore uga soo goostay al-shabaab iminkana si qarsoodiha ula shaqeynayay kooxdaasi Nuur Farey ayaa ahaa sargaal firfircoon iyo nin ay ka go'an tahay ciribtirka kooxaha argagixisada wuxuuna guulo badan ka soo hoyay dagaaladii al-shabaab uu kula galay Shabeellaha Hoose oo ah halka ay ka howlgasho guutada uu taliyaha u ahaa dilkiisa ayaana weli helin baaritaan rasmi ah waxaana dhowr jeer uu saraakiisha ka sareysa la wadaagay in ciidamada lagu soo darayo guutadiisa iyo kuwa ku jiraba la hubiyo wuxuuna marar kala duwan muujiyay tuhno uu ka qabo in ciidamada uu maamulo qaarkood ay yihiin xubno ka tirsan al-shabaab shakigaas oo aysan wax mas'uuliyad iska saarin saraakiisha ka sareysa ayaa soo dadajisay geeridiisa maadaama uu ahaa nin aragti dheer oo heli og dhagar walba oo argagixisada ay ku naafeen karto dagaalka lagu ciribtirayo haddaba habcaynkee ahayay al-shabaab ciidamada ugu dhex darsadaan kuwa dawladda sida la ogyahay gudaha dalka waxaa si joogto ah loo qoraa dhalinyaro Soomaaliyeed kuwaas oo ku biiraya ciidamada xoogga dalka waxaase soo ifbaxaya in ciidamadaasi ay ku jiraan xubno daacad u ah al-shabaab oo ku milan ciidamada intiisa kale si loo fashiliyo yoolka dawladda Soomaaliya ee ku aadan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab waxa ay kooxdu bilowday bilihii ugu dambeeyay in dagaalyahanadooda ay u soo diraan gudaha Muqdisho si ay uga mid noqdaan dhalinyarada ee dawladda u qoranayso ciidamo ahaanta sida ay sheegayaan xogaha ay heshay hortabin media al-shabaab waxa ay Muqdisho u soo dirtay bilihii ugu horeeyay 2 sano ee la soo dhaafay dagaalyahano iyaga ka tirsan kuwaas oo tiradooda lagu sheegay in ka badan 1500 walow tiradu ay intaas ka badan karto misana raggan ayaa ku biiray ciidamo la qorayay oo isugu jiray military iyo police waxaana jira tiro kooban oo ku jira nabad sugidda xubnaha al-shabaab ay ku dhex qarisay ciidamada dawladda waa kuwa koox isku waji yaqaana waxayna al-shabaab ka ilaalisay inay isbartaan in ka badan 10 qof taas oo hor istaagi karta in haddii shakhsi la qabto uu fashiliyo dhammaan xubnaha kale ee ku jira ciidamada dawladda dilka Nuur ka hor bishii February 2023 dabayaaqadeeda waxaa gacanta lagu soo dhigay sargaal ka tirsanaa ciidamada danab kaas oo baaritaan la sameeyay lagu ogaaday inuu kaalin weyn ku lahaa weerarkii lagu qaaday 20kii Janaayo saldhigii Galcad halkaas oo lagu dilay saraakiil uu ka mid ahaa taliye ku-xigeenkii guutada danab ee ciidamada xoogga dalka Xasan Maxamed Cismaan oo loo yaqaan Xasan Tuur Mareykanka oo gacanta ku hayay tababarka iyo qalabaynta guutadan ka tirsan ciidamada dawladda ayaa baaritaan dhab ah ku sameeyay kiiskan iyo sababaha waqtigaas ku soo beegay weerarka waxaana taleefanada ciidamada goobta joogay uu ku xiray qalab uu ku ogaan karo dadka ay xiriirka la sameynayaan waana tan keentay in sargaalkan gacanta lagu soo dhigo sargaalkii xilligaasi la qabtay oo ahaa laba xidigle ayaa lagu magacaabaa Mucaawiye Axmed Cismaan waxaana dhawaan maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ku xukuntay dil toogasho ah halka xoguhu tilmaamayaan inuu fashiliyo xubno kale oo al-shabaab iskala tirsanaayeen oo tiradooda uu ku sheegay 7 qof kuwa oo kala jooga saldhigyo kala duwan oo u badan kuwii weerarada lagu qaaday waxaa tiro aad u badan ku sii siqaysa saraakiisha iyo ciidamada lagu qaarijinayo shirqoolada ay dhigayaan xubnahan al-shabaabka ah ee ku dhex milan ciidamada dawladda iyadoo aanay muuqan dadaal iyo xogo sirdoon oo ay dawladdu adeegsanayso si ay raggan uga dhex saarto ciidamada halganka ay ka go'an tahay dad badan ayaa isweydiinaya maxay yihiin fursadaha raggan shabaabka u saamaxaya inay howlgalka jilaafeeyaan midda koowaad ayaa ah adeegsiga taleefanada iyo internetka oo ciidamada furimaha ku jira awood loo siiyay waana tan kordhisay weerarada rogaal celiska ee ka imaanaya al-shabaab maadaama ay fariimo ka helayaan kuwa ugu dhex jira ciidamada dawladda tan iyo bilowgii sanadkii hore oo kaliya al-shabaab waxay dib u soo weerareen 6 goobood oo hore looga qabsaday waxaana weerarkooda uu ku soo aadayay xilli ay kala daadsanaayeen ciidamada taas oo dhalisay khasaare baaxad leh oo soo gaaray ciidamadii saldhigyadaasi ku sugnaa weeraradii al-shabaabku ay ku qaadeen saldhigyadii ku yaalay Janaay Cabdalla Galcad Runirgood Hilowle Gaab Budbud waxay ahaayeen kuwii ugu halista badnaa ee hogaamiyaan xubnaha al-shabaabka daacadda u ah ee ku qarsan ciidamada dawladda khubarada ku xeel dheer amniga ayaa soo jeedinaya in dawladda Soomaaliya iyo dawladaha taageera ee qoraya ciidamada inay xaqiijiyaan kalsoonida dhalinyarada ay ciidamada u qorayaan waxaana laga maarmaan ah in ahmiyad la siiyo raadinta xogaha kuwa la qorayo lana helo taleefanada eheladooda si wax badan looga ogaado heerarkii noloshooda iyo dadkii ay la macaamileen